muuqaalkan waxaad ku daawan doontaa caasimadda dalka Finland ee Helsinki iyo caasimadda labaad ee dalka United Kingdom magaalada Birmingham. Dalka Ingiriiska iyo dalka Finland keebaa noloshiisa wanaagsan tahay wax badan ayaad ogaan doontaa. marka ugu horeysa magacayga waa Cabdirasaaq Yuusuf Maco waxaan ku noolahay dalka Finland waqti xadarkan 2021 bisha 9. sababta ama isku bardhiga sababta aan keenayo waxay tahay aniga waxaan khibrad u leeyahay oo aan ku noolaa labada dalba wadankana waxaan ku noolaa muddo 15 sano ah inta aan u goorin dalka UK magaalada labaad ee Birmingham halkaas oo aan ku noolaa 2 sano iyo 9 bilood. marka waxaan isu barbardhigayaa nolosha halkan taala iyo nolosha halkaas taala maadaama labaduba aan wax badan khibrad u leeyahay. Soomaalidu waxay ku maamahdaa nimaan dhul marin dhaayama leh. waxaan hadda dib ugu soo laabtay shaqadeedii hore aan hore uga shaqaysan jiray ee ahayd xirfadda darawalnimada ama taxi wadanimada. waqti xadarkan waxaan taxi ka wadaa caasimadda dalka Finland. waa tahay markii aan u guuray dalka United Kingdom magaalada labaad Birmingham maxaan qaban jiray. markii ugu horeysay waxaan shaqo ka helay shirkad la yiraahdo Blue Earth Foods Company. waxay ku taallaa magaalo u jirta 14 mayl magaalada Birmingham oo la yiraahdo Redditch District ayay ku taallaa. markii aad gaari ku tageysana waxaad u soconaysaa ilaa iyo 45 daqiiqadood. shirkadaasi waxay soo saari jirtay cunto badeeda ay markaasi waxay u sameyn jirtay baakadeen ayadoo markaasi shaqadeeduna ay ahayd shaqo la bilaabayo subaxda aroorta hore 6 subaxnimo ilaa iyo 6 galabnimo 12 saacadood ayaa la shaqeynayaa. sidaas ayayna ahayd shaqadeeda. inta aan shirkadaas ka shaqeynayay waxaan galay school security training oo la yiraahdo James Academy. James Academy waxa uu ku yaalay Birmingham waxaana markaasi ku soo diyaariyay door supervisor in aan noqdo shaqaale ama waardiye iridda ka shaqeeya. Hello QA. Mega research has come. Thank you. How is my work? Is it Nice. really? You like it? When I'm here? Thank you. You too, yeah? Yeah. You like my work? Yeah. Why you like? Your wife? Yeah. No, work. Work? Yeah. Because you are careful. You see me when you're the girl. Hey! That's good, man. Yeah. Enjoy it, man. Yeah. muuqaalka marka ma aadan ku soo daawan wali waxyaabo isku barbardhiga labada dhinac noloshooda dhabta ah. marka halkan ayay sheekada ka bilaabanaysaa. nabad ma taalo magaalada Birmingham. dilaagii saaxiibkiisa wadnaha mindida kala dhacay xaflad ay wada joogeen ayaa lagu qabtay airportka asagoo u baxsanaya dalka Ethiopia. dhacdadana waxay dhacday 9 Oktoobar 2020. waa qiso kale canug yar oo college lagu dilay. ayadana waxay dhacday 19 February. marka dhacdooyinkaas iyo kuwa la midka maalin walba idaacadda ayaan ku arki jiray. marka Soomaalida ayaana u badan tahay inta badan waxa isdila.